marka uu horeysay Ilaahay baa mahad leh labaadka waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan doonayaa laba kelmadood inaan halkan ka iraado maanta kelmadda hore ka gobol ahaan waxaan fariin u dirayaa dadka gobolka Maroodijeex ku nool caasimadda iyo degmooyinka kale ee ka baxsan caasimadda maadaama lagu jiro diyaar garowgii munaasabadda 18 May oo ah munaasabad qaali ah oo maalintii aan la soo noqonay xornimadeenii 60kii aan qaadanay waxa weeyaan meesha khaldan inaga gashay inagu diiqnay maalintii aan la soo noqonay waa maalin qaali ah munaasabadaas afooda inagu soo haysa waxaan aan leeyahay dadka u dirayaa in diyaar garowga la bilaabo oo 8 degmo ee caasimaddu ka kooban tahay oo ka socdo diyaar garowgii ay diyaar garowga la bilaabaan aad la isku abaabulo iyadoo oo mar walbana la ilaalinayo nabadgelyada in la isasiiyo maxaan ku dhahay xogaha ku saabsan xagga nabadgelyada oo shacabku iska warhayaan oo degmooyinka wixii ku soo kordhay iyo wixii la arko si degdeg ah loogu sheego meelaha xafiisyada nabadgelyada ama hay'adaha qaabilsan nabadgelyada degmooyinka ka baxsan caasimadda ee gobolka Maroodijeexna waxaan leeyahay waa in ay si weyn munaasabadaas ugu soo baxaan si weyn ay isku abaabulaan maadaama ay tahay munaasabad qaali ah degmooyinku way tartamayaan gobolka Maroodijeex degmo walba waxa laga rabaa inay keento munaasabad u qalanta maalintaas nabadgelyadana waxa weeyaan la ilaaliyo la wada shaqeeyo maalinta qaaliga ana si weyn loo soo dhaweeyo yar iyo weyn sheekh iyo shariif in si habboon looga qayb galo waa munaasabad qaali ah halkaasaan ku dhaafaya waxaan arkayay oo social media aan ka arkaya iyo warbaahinta warbaahinteennaba mas-uuliyiin waaweyn oo uu ku jiro hanka inay hoggaamiyaan waddanka Somaliland oo ay gaadhaan kursiga ugu sarreeya oo abaabulaya dhalinyartaana le waa dagaalamaysiin dhiiggiinaad shubaysiin oo dagaal ku baaqaya waxaan garan waayey waddamadan ina soo weeraray waxaan garan waayey ciidamadan ina soo galay waxaan garan waayey dhibaatada intaa leeg halkay ka socoto maadaama gobolku nabadgelyo waddanku nabadgelyo yahay xuduudaheenu iyo ciidamadeenu ay ilaalinayaan oo wax dhiba la soo sheegin gobolka Maroodijeexna nabadgelyadiisu boqolkiiba boqol tahay wax dhiboon ognahayna inay jirin iyo waxay isku kay qaban waayey mas-uuliyiintaasi oo aan anagu waxayna ixtiraam sharaftoodana aan ilaalinayno waxay ku hadlayeen markuu qofku doonayo inuu waddankan ka noqdo madaxweyne oo gaadho kursiga ugu sarreysa waa inuu la yimaadaa wanaag xumaantu reebo wanaagu maxaan ku dhahay dadka faro horumarka waddanka inuu ka qayb galo ilaalinta nabadgelyada inuu ka qayb galo maalinta waxa weeyaan qaaliga 18 Mayna inuu ka qayb galo oo uu muujiyo wanaageega nagalana shaqeeyo dadkana uu faro in
nabadgelyada la ilaaliyo maalinta qaaligaana la soo wada dhaweeyo maan filayn in inagoo ku jirna munaasibadaha waddankeena ta ugu waaweyna oo 18 Meeya in mas'uul waddankan doonaya inuu gaaro kursiga ugu sareeya dhalinyarta intuu u yeedho uu yiraahdo waxa weeyaan dagaal bad galaysiin oo naftiina aad waayaysiin diyaar garooba maan filayn wayna dhacday waxaan se dhalinyarta leeyahay gobolka Maroodijeex waa nabad wax inagu soo duulayna ma jirto dibna ma jirto anagu haddii aan ahay anigu gudoomiyihii gobolka Maroodijeex nabad baan gobolka ku ogahay dhalinyarta waxaan leeyahay waa inaad nabadda ka shaqaysiin dhalinyarta waxaan leeyahay waa inaad wanaagga ka shaqaysiin dhalinyarta waxaan leeyahay inaad horumarka gobolka ka shaqaysiin iyo waddanka dhalinyarta waxaan leeyahay dad aqoon-yahanaa tihiin dhalinyartii mustaqbalka berri madaxda noqonayay baa tihiin dhibtaa anagu ma ogin halkay ka jirto waxaan doonaynaa inaad nabadgelyada ilaalisiin inaad wanaagga isfartiin inaad ka shaqaysiin waxa wanaagsan ee u baahan yihiin dadka Soomaaliland waxaan u baahanahay inaan gacmaha isqabsano waxaan u baahanahay inaan wanaagga ka wada shaqeyno waxaan u baahanahay in dadkeena aan u sheegno wixii wanaagsan xumaan ilaahay kama baryayno ilaahayna inoo keeni maayo nabadgelyada waxa ka mas'uula dawladda ka mas'uula nabadgelyada gobolkana anaga ka mas'uula cidna ka yeeli mayno in nabadgelyo xumo iyo abaabul iyo dhibaato aan jirin ay ku abuurto gobolka marna ka yeeli mayno waxaan uga digayaa mas'uuliyiinta waaweyn aan sharafta iyo ixtiraamka u hayno waxyaabaha ay ku hadlayaan inayna ahayn wax qof weyn ku hadlo inayna ahayn qof waddankan kursiga ugu sareeya damca kaga jira oo ku hadlo wali waxa isku qaban la qof doonaya inuu u tartamo oo hankiisu yahay inuu gaaro kursiga waddanka ugu sareeya iyo dhaqanka aan arkayay television-ka iyo social media ka arkayay isku qaban weyn waxaan saleeyahay wax walba way dhacaan laakiin waxaan sheegayaa oo gobolka Maroodijeex dadka ku dhaqan u sheegaya anagu nabad baan ognahay wanaag baan ognahay dawlad baa waddanka ka jirta hay'ada nabadgelyo ka jira hay'ada garsoor baa ka jira cidii wax tabanaysa waa inay ku soo noqotaa dastuurka iyo xeerarka u yaala jamhuuriyadda Soomaaliland xeerar baan leenahay dastuur baan leenahay nidaam baan leenahay maantana waxa weeyaan waxay noo taagan bishii shanaad baan ku jirnaa 18 May baa foodo inagu soo 2 cisho ka hadhay waxa ahaynoo anagu ognahay ma jirto doorasho marka la gaarana cid doorasho diidan oo wali tiri doorasho ma dhacaysana ma jirto doorashadana waqtigeega hal la gaaro dadkuna wanaagga ha ka wada shaqeeyaan wanaagana ha laga wada shaqeeyo waxaan ku celinayaa nabadgelyada xumada cidda abuurta ee abaabul samaysa nabadgelyada u dhimaya oo khalkhal gelinaya xasiloonida iyo horumarka iyo wanaagga ay gaadhay Soomaaliland marna waxa weeyaan indhaha laga laaban maayo nabadgelyada gobolkana anaga ka mas'uula waxaan leeyahay dadka gobolka ku nool Maroodijeex ha laga wada qayb galo ay dhinmay sidii la iniga bartay dad wanaagsan baan nahay dad wax istaraan nahay dad waxa weeyaan isku duuban baan nahay dad isku ujeedala baan nahay dad meel hadaf u wada socdaan nahay waddankeennuna maanta wuxuu u baahan yahay abaar baa jirta biyo la'aan oo waxa weeyaan wali roob fiican oo ku filan dadka ka mudayin markaan waliba Maroodijeex ka hadlayo iyo gobolada kale way jiraan laakiin anu gobolka Maroodijeex aan gudoomiyaha ka markaan ka hadlayo dadkeena baa u baahan inaan u gurmano dadkeena baa u baahan inaan biyo gaarsiino dadkeena u baahan waxa weeyaan dhibaataysan oo dhan inaan waxa weeyaan ka saarno dhibaatada waxaan kaga saari karnaa isku duubni iyo wax isku darsi
iyo fikir saliima oon xumaani ku jirin waad ogtihiin dhibaatadii waaheen ka dhacday dawladda iyadoo hormood ka ah madaxweynuhu sidii loogu gurmaday dadka iyo maanta sidaan wax u qabsanay iyo inaan ogaano inaan wax qabsan karno maanta sidaan waxa weeyaan dadkeenii iyo waxa weeyaan dhibaatadu gaadhay ugu gurmanay wax loogu qabtay waad arkaysiin dadka Soomaaliland ee waliba gobolka Murudijeex ku dhaqan waxaan leeyahay wanaaga aan ka shaqeyno xumaanta la iska daayo waxa weeyaan maalinta khayrka qabta ee maalinta weyn aan soo baxno nabadgelyada aan ilaashano yaanu noqonin salaan waxa weeyaan meel lagu gaaro dadku inay noqonin dadku waa inay noqdaan dad og horumarka dawladdeenu samaysay horumarka waxa weeyaan aan gaadhnay dhinac walba marka laga eego sektaradii dawladnimada ee waxa weeyaan hay'adihii dawladdu hay'ad walba inay horumar gaadhay